magaaladii ruqi baa ka hadlaya waxa kale ciidanka uu xukumo in Axmed Tiir iyo ninka Khadarlaan garan la yiraahdo xukuman ee aarayida u taqaana bagalay magaaladii hadda meeshii wax ka dhaceen 20 kiiloomitir boo joogtay dadkii halka ku gadooday amshaxa laga dhigay qaar baab dhinacaas baqtiyay oo dhakhtarka xayad yaala cadaawada inta lagu wax loo galayaa waa Maxamed Abi Darti waan maleynaya muxuu noolaa hadlay way muxuu runta noogu sheegay way kuwii la xidha xaq u lahaa ma xidhin inama daafka duubtay magacyadooda loo garanayo hebel loo garanayo ee ragga madaxdii dhaleen ee rag qaarkood ay ragga ciidamadan xukumi dhaleen wallahi oo billahi oo tollah xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay halkan oo xarunta golaha wakiilada waxa uu ka hadlay shaqaaqa ka dhacday deegaanka Ruqi oo ka tirsan gobolka Awdal sidoo kale waxa uu dul istaagay isla markaana uu si adag u naqdiyay isqabqabsiga ka taagan cidda dhisaysa dhismaha suuqa Waaheen oo dhawaan suuqu dabku qabsaday magaaladii Ruqi baa ka hadlaya waxa weeyaan halkaas sagar baa ka dhacday 2018 beerihi dadkaasi qaatay waa wixii qalbigayga taabtay maalintii halkaan joogay hebel iyo cod buu iyo maxay buu ooyday kuwa doqmeen nolosha waxba ka garanaynin sagar markii qaaday abaaraha ka dambeeyay abaar baa jirtay maanta ilaahay sagartii wuxuu ugu bedelay meelu dahab ka soo dilaacay dahab yar oo loogu tago oo meelaan iibsadaan dadkii beeruhu dahabkii baa niman mas'uuliyiin dabcan dadkii deegaanka buuq iyo qayla ka yeedhay dadkii shacabka ahaa ayaa laga xidhay dahabkii way gadoodeen magaalada Ruqi la yiraahdo ilaa 20 kiiloomitir jirta meesha dahab ka dilaacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyay ayaa maalintii dambe waxa galay ciidanka uu xukumo in Axmed Tiir iyo ninka Khadarlaan garan la yiraahdo xukuman ee aarayida u taqaana bagalay magaaladii hadda meeshii wax ka dhaceen 20 kiiloomitir boo joogtay dadkii halka ku gadooday amshaxa laga dhigay qaar baab dhinacaas baqtiyay oo dhakhtarka xayad yaala waad soo arki kartaan warbaahintu cadaawada inta lagu wax loo galayaa waa Maxamed Abi Darti waan maleynaya muxuu noolaa hadlay way muxuu runta noogu sheegay way halka lagu ma deynine macallimiinta iskuulka dhigayo kalaasiyada ku jira waa kuwa ku xidhan halka guriga asaqbada ee xaafadda iftin 60 baa la keenay Hargeysa habeen hore 60 mudane madaxweyne arrimaha ciidamada inaan aad uga hadlo ma jecli daliilahoogana waan ognahay kuwii la xidha xaq u lahaa ma xidhin inama daafka duubtay magacyadooda loo garanayo hebel loo garanayo ee ragga madaxdii dhaleen ee rag qaarkood ay ragga ciidamadan xukumi dhaleen wallahi oo billahi oo tollah haddaan dambiga cidda lagu qaadin oo la doonto ninka miskiinka ee abaarta ku dhacday ee beertiisii daadkii sagar ka qaaday intaad ka soo qaado bakiyo saldhig leh oo xabsi leh oo intaba lagu hayn karo ee boorama soo dhaafisay ee Hargeysa keentay ee waliba macallimiintii iskuulka iyagoo waliba iyo caaqiladii iyagoo la laayay 60 qof waxay geysteen ma garanayo oo ahayn nacayb iyo qabyaalad waxa ku sheey karo waxaan leeyahay ciidanka waxaan u dhisanay inaan isku toorayno ma inaan isku dulmino ma waxa su'aala ka qaba oon u xishoonayo sida ninka madaxweynaha maalin u baad gaari sidoo darajadu u bixiyo ciidamada ragii ciidankan asaasay booliska iyo militariga asaaskiisa lahaa suuqay wareegaysanayaan aniga constituency soo doortay intaasoo dacwadood bay keeneen waxa la siiyaa darajada kuwa 2019 la qoray 2019 la qoray baa gaashaan la saraa oo hogaanna kuwii 1991 ciidanka booliska lagu bilaabay oo taqaanaan suuqay fadhiyaan madaxweyne darajo lama siin waxa soo dhan baa dul qaadanaynaayoo noo arkayna oo diidayna inaan shacabka la wadaagno madaxweyne ciidanka dadka 60 qof ee Axmed Tiir soo raafay in Axmed Tiir dambiilayaasha soo qabto ciidanka la dagaalanka argagixisada loo sameeyay magaaladana waa ogtay wixii ka dhacay ciyaalkayga innocent ka ahaa ee sheekhaada sunu dhalma dambi geystay muxuu ciidankeenu ilaalin waay ciidanka ciyaalkan adeerka waa miinayn maxay geysteen iyagu haddii aada waxay ku eedeynayaan muxuu geystay ciyaalku maxay geysteen ciidanka Ruqi lagaga soo raafiyo 60 qof maxaa lagu qaban waay kuwa war ilaahay ka xishooda oo ummadda ka xishooda waa bil Ramadaane dadka masaakiinta laysan wada dhaawacan ee saldhigga iftiin lagu soo shubay 60 kaana waxa la lagu celiyo magaalada Ruqi gurmad bay doonayaan abaareed mid biyeed bay doonayeen in beerooga dib loogu soo celiyaa bay doonayeen daabki yaraw soo baxayna rag saraakiila intay ka carqaladeeyeen haddana la soo laayo halka la keenay dadka reer Soomaaliland way la soo arki karaan
dadka la laayay dhinacyadu bakhtiye sidii loo garaacay way la soo har karaan dhakhtarka xayaad bay yeelan madaxweyne haddaanad ogeyn waan ku ogeysiinaya ciidanku inuu inamada afka duubtay saraakiishu ay dhaleen inay soo qabtaan baa ka wanaagsan intay dadka xoolo dhaqata beeralayda ee masaakiinta labadiiba abaar iyo daad ka qaaday inta la soo ururinayo la laynayo waxa ayaanteed laga joogaa maalintii dabkii weynaaye khasaaraha weyn u geystay caasimadda iyo guud ahaan qaranku u dhacay waxaan rabaa inaan arrintaa wax ka idhaahdo oon talooyina ka soo jeediyo sidoo kale waxaan rabaa inaan magaaladaydii anaadka u jeclaaya ruqina maad aragtay arrimaha ka taagan maanta iyadana waxaan doonayaa inaan wax ka idhahdaan doonaya arrimo ka taagan maanta ayaa 8 ku ah maalintii uu dabka Hargeysa uu suuqeennii weynaaye waaheen uu dabku baabiyey si kastoo uu dhacay dabkaasi wax badan kamaanaan odhan su'aalo badan oo ahayd in la iska weydiiyana waxaanu golayna fasax buu ku jiraa inaanu shacabka la wadaagno su'aalahana oo de iyadoo golay fasax yahay cid la weydiiyo mas'uuliyad iyo meel loogu yeedhaa ma jirto golaana waa kii warqad laga soo saaray leeyahay guddi shaqayn karaay ma jira leeyahay door ku xumay baylahada waxaan moodaa in laga faa'iideystay marka hore waxaan aad u bogaadinayaa cid kasta oo gurmatay oo garab istaagtay dadka xoolahoogii dabku uu baabiyey habeenkii dhaweytoole uu baabiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wixii ay bixiyeenna ee xoog iyo xoolahana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intaa markaa ka imaado maanta oo maalintii 8aad waxaad moodaa in lagu dul marmayo in la isku dul haysto dadkii shacabka ahaa ee halkii ay kala soo baxayeen bariiskooga iyo kirooyinkooga iyo noloshooda ay gubatay in lagu dul marmayo moodaa waxa muuqata inaan weli hal tallaabo la qaadin waxaana mas'uulkii ugu horreeyay soo jeediyay in la baaro baarista waxa u qaateen inaan leenay kuma dambiga galay kuma meesha gubay inaan weydiinayna u qaateen baaristu waxaan doonaynaa inay ka jawaabto meheradaha gubtay waa imisa hantida gubatay waa imisa darajahan sida u kala sarreysa hantida meesha ku gubatay group A imisa way qiimahooga lacagta ka gubatay iyo guryaha iyo hantida ka gubatay group B imisa ka gubtay C D ilaa laga soo gaaro ninka ugu hooseeya laga soo gaarayo ay baaristu sheegay waxay sheegi lahayd dadku sida uu kala dayar yihiin bay sheegi lahayd baaristu waxay sheegi lahayd baaristu oo guddiga soo saari lahaa sida looga gaashaamanayo haddii dab dambe u dhaco waxay soo saari lahayd waayo aragnimo looga faa'iideysto bacadlayaasha kale sida kuwii halkan ka dhacay iyo xaafadaha kale isku rarta ayay soo saari lahayd laakiin waa la sharaystay maanta oo maalintii 8aad lama yaqaano 100 qoys 20 qoys ama 200 qoys ee ugu danta yaraa ee bacadlaha Hargeysa joogay ee aan $1 uga harin hatidoodii miyaa taqaanaan cid taqaana meel ku sheegi kartaan may haddii shacabku wax gaarsiin lahaa waxa idin liiskooga lala wadaaga shacabka tay oo la soo saaray lama soo saarin waxa lagu murmayaa lacagta soo dhacday meel hiblaayaha lagu shubo iyo meel hiblaayaha lagu shubo la isku haysta suuqaana naqshadeynaya iyo ana dhisaya la isku haysta Soomaaliduna waxa tiraahdaa dhicisku inta birta loo soo sido ayuuba nafbaxaabay Soomaalidu tiraahdaa waxa aad u cajab leh inaan weli dul taaganahay khasaare halka ka dhacay bidka weyn dadka wixii alaab yar u hadhay oo kumanaan qoysa waxay wareeyeen oo diina ku soo aragteen dooxa weyn Hargeysa xilli roobaad baan ku jirnaa goor dadku imanaya yalla balmo shalayna fi kuma bixinay 20 kun nafood baa ku baxay maanta hadduu aad soo dhaco kuwa umada u sheeganaya lacagta isku haystay maxay warkii way khatarta inta leeg dul oganaysa mar labaad dadkeena dul oganaysa maxay warkii way ma arkaya laakiin indhoogu dollarka yarkayaan iyo lacagta laga baaqayo meelaha kala duwan bay arkayaan waxa soo sheegaya maxaa loo sameyn waayay dadka wixii alaabi u hadhay qorshayaasha waxaad in qorshe la sameeyo la yiraahdo
inta hanti u hadhay ee wax yar u hadhay waa imisa oo liiskooga la yaqaano kabacdina la yidhaahdo halkeen geynaayo ku ganacsadaan in la yidhahdo beed oo loo furo booliska garoonka ku yaalla halkan maxaa la yidhahdaa liinka booliska loo furo oo loo furo garoonka halkan ku yaalla maxaa la yidhahdaa xerada birmadka ciidanka garoonka halkaa ku yaalla in loo furo halkaa la geeyey dadkii ay karaatoonta yar iyo maadarata inta bushqadaa kala baxay meeradoogii waxna dooxay waran yihiin waxna meela dhigaan bay waayeen guddigu markaa maxay qabanaysaa mar haddaan kii kartoonka la baxay ama kaaryoonaan la baxay aan la geynin meeluu ku ganacsaday ilaa maanta ragga faanaya bu'aya si fiican bay shaqa u socotaali shaqaday qabanayaan waa maxay tahay ee hayaan ilaa maanta 8 maalmood gudahood maxay hayaan waxay hayaan wasaaradda hawlaha guud baa dhisaysa marna waxa dhisaysa dawladda hoosaa dhisaysa la isku hayaa waxaan xasuusinayaa suuqa Hargeysa gubtay muuna naqshadaysnayn qorshe ma laha wuu qorshaysan yahay 4 wado sidaa waxa u maraan bari iyo galbeed 7 wadana waxa u maraan koonfur iyo waqooyi ba maraan qorshaha la sheegay wasaaradda hawlaha guud sameynaysa muxuu yahay suuqa Hargeysa qorshaysnaa ee markii Hargeysa la dhisay la qorsheeyay ama bilan raf la qorsheeyay way wadooyin soddon soo baxay suba maalintii dhood marka jiingadii iyo dadkii bacdiyaalka alaabta ka gubatay Soomaa meena shaqadii dawladda hoosuuna dhismo maxaa la isku haystaa dollar baa laga dhaxarkayaa beelata waxaan soo jeedinayaa in dadkii wuxuu hareen si dhaqso ah loogu sameeyo meel ay ku ganacsadaan oo alaabta inta hadhay ku iibiyaan baa soo jeedinaya oo haddii ay xasuusan laayiin malaa dhulkii bannaanaa intan bannaan aan arkaynana malaa rag baa la qaybsaday waan xasuusinayaa waxa bannaan maxaa la dhahaa liinka booliska waxa bannaan garoonka birmadka ku xigay halka UNDP agteeda bannaan stadiumkii weynaaba bannaan waxa bannaan haddii rabiid maayo beerta xorriyadda bannaan intaasiba dadku way iman karayaan noloshoodana way ka samayn karayaan dadka caruurtooda ciidsiinayaana halkaa way tegi karaan way ku ciidsin karaan waxaan soo jeedinayaa oo meeshaba laga saaray shaqaalihii u shaqeynaya meheradaha gubtay meherad walba meherada ugu yar labayna baa joogay ugu badnaana meheradaha qaar 18 baa joogay 3,000 oo ina kama yara xalay waxay la soo hadlay 570 diiwaan gashan oo isdiiwaan galiyay bay la soo hadlo shaqaalihii dhalinyaradaha dadkan kale cid baa deyn siinaysa cid baa waxa maahay karayso meheradiyo waxba waa raray meelo yaaleen ina ka wuxuu yaaleen maalintii yoomiyay ku shaqeynayeen kuwaas miyeen dadka loo gudman yahay adduunyadu waxay la barooranaysaa ee laynoola baroortay loo yaabanay ee loo cabaaday adduunyadu dhan u waraaqday maaha fooqyada gubtay maaha dharka gubtay waxa laga waraaqay gaajada iyo macluusha ku soo foodle dadkii waxa biishanay han noqdaan kuwii sida tooska u biishanay ama han noqdeen kuwii sida dad ban u biishanay han noqdeen bay adduunyadu ka qaylinaysaa innaguna waxaan isku haysanaa yaa dhisay gurigu muxuu qiimo leeyahay haddii dadkii galayay baa dhintaan oo gaajo u dhintaan hadduu daadku qaado 2,000 qoys ee waran bridge-ka ilaa iyo maxaa la yidhahdaa halka maxaa la yidhahdaa ka inta u dhaxaysa dadka waran hadduu imika daad hawd ka daayo soo dhaco yaa badbaadinaya soo berinaydin odhan maayaan kuwii beenaalayaashii kuwii shacabka iyo saxaafadda iyo ummadda intay ka xishoon waayeen odhan jiray weligeedba sanaynu haan jirnay weligeedba waan ka soo rayn jirnay weligeedba iyadoo sidaan haan jirnay waa mustacmalaadka ummadda lagu jabsado wey haddii maanta daad qaado oo shalay haddii dabgubay oo dabkii mas'uuliyadiisii cidii lahayd la dooni waayey berrina waxaad maqli doontaan hadduu daadkaasi galabta soo dhaco dadkaa qaado iyagoo ku marmarsiyoonaya ilaahay baa keena daadka waar ilaahay ma keenaadaa keeno dadka halka geeyo dhigi waayey meelihii u bannaanaa gey waayey maxaad ilaahay ugu marmarsiyoonaysa qorshe xumadaada keento talxumadaada keentay aan ku sii dhawaado dadkaa shaqaalihii waxay ka mid yihiin dadka hantida loo ururinayo waxaa soo jeedinayaa cidna ma necbin cidna uma cadhaysnin waxaana damqaysa mas-uuliyad darrada meesha taalle haddana wax la qaban karaa in inamadaa shaqaalaha wixii aan reer ku tiirsanayn ama xaasilayeen reerooga ku filan inta la diiwaangeliyay iyagana in wax la gaadhsiiyo lacagta halkan lagu ururinayo in sare lagu dhiso looma ururine in nolosha dadka lagu badbaadiyaa loo ururiyey waxaan leenahay bal haddaad qorshe haysaan nala wadaaga qorshihii oo shacabka u sheega hadday 3,000 qoys wax kaga gubteen 1,000 qoys ugu danta yar leh 500 ugu sii danta yar leh
boqolka ugu sii danta yar la wadaaga shacabka Soomaaliland baa ku filanoo qoys walba wuxuu cuniyo waxba siinaya inta ma idinka martii karnaa umalan ma idinka martii waxa soo jeedinaya wali talaabo lagama qaadin suuqyada isku raranta ah ee Burco Boorama Wajaale Ceerigaabo goljilicdeennina waa la qabtay dalkana cadow badan buu leeyahay yiraahdaan maalmahay lacagta cunayaan ay kala dhuumanayaan laakiin cadowgu goljilicdeen loo arkaya maanta haddii ay wala taargad garin jiray xarumaha baarlamaanka iyo madaxtooyooyinka maanta waxay barteen inuu shacabku la baabiin karo nolosha shacabku xidhanta maxaa talaabo laga qaaday baclayaasha miyaa la joojiyay shaqadoodii ma sidii bay iskugu rarayeen wadooyinku u xidhayn gobonimo waa kay nagu xiga wadooyinku u xidhayn kii Boorama u xidhay ka Burcaan u xidhay maxaa loo furi waayay ma inaan noqonin dad nolosha wax ka bartan ninka qofka muuminka god laba jeer laga wada qaniin miyayna haynin 8 maalmood gudood ciidamada Boorama lagu fayliyo bacdii Boorama kuwa Burcaan lagu fayliyo kuwa Ceerigaabo lagu fayliyo talaabo lagama qaadin waayo kuwii ka badbaadeen nafooga kala carray meeradooga ayay dawladeenu dooxa Hargeysa wadhay adkooga hilibkooga iyo intii soo hadhay baaqay qodobka labaad guddiga waxaanu soo jeedinayaa arrinta qaaraaruurta loo magacaabay inay qorshe hufan la wadaagaan ummadda iyo adduunyadaba adduunyadu lacag waxay ku bixinaysaa markaad nidaam xisaab xidhkiisu wanaagsan yahay oo daah furan aad samayseed ummadda la wadaagto lacagta ummadda lagu caawinayo way sii badanaysaa mar kasta oo lagu tumo inaad macaash wado iyo inaad kala dhuumasho wado iyo inaad dhexdiina haysataanna way yaraanaysaa ha laga daayo muransiinta hay'adaha sharcigu uu kala xadeeyay wasaaradda hawlaha gudna naqshadayn bay leedahay naqshadaynta suuqu naqshadiisan yahay maxaa lagu marmayaa waxa kaloo arrinta Hargeysa ka dhacday kaga baxaya waxba muuqda kuwaad isleedahay malaha fursadayo jaanisyo ganacsiba uga muuqday waayo marka dadka shacabkii wax u soo hadheen meel la geyn waayo ee alaabtoodii suuqa ay ka baxaan tolo maqaar baaba fursado ganacsi ka dhaxalkiyeen is weydiinay macalcuna sab muuqad doona wala arki doona ninka halkay ku dambayso haddaan nool nahay inteenani halkan un baynu wada joogi doonaa inuu wixii run ku wadaagi doonaa diil hayraado waxaan u soo jeedinayaa oo kale saddex guddi lacagta soo dhacaysa way badanta dadka inay gaadho masaakiintaaba ugu mudan waxa ugu mudan in waan arkay kambaniyo durba haysiis bilaabay shirkado yar localka iyo waligeedba dhismayaasheena xafiiska wasaaradda aan u dhisayna marka golaha loo dhisay lagu aaminin heedhade ayaa durba soo wada diyaar garoobi maxay haday lacagina soo gasho suuq lagu dhisi karaa in ama Taiwan ama Ethiopia ku taraadka la siyaasad soo jeedinaya suuq caalami ah inoogu dhiso oo raandis loo bada u shaqeeya soo jeedinaya oo halkan lagu masaarifaysan oo 20 jeeg way loo dhigay ma soo jeedin shacabka reer Soomaaliland dooxa wara wax leey walaalayaal waan baahanahay looma bahala cuno ka soo baxa dooxa hadaa doonaysaan ku habsada maxaa la yiraahdaa beerta xorriyadda imaado kaaleya ka ku ganacsada ninkeedii kor joogsan arag kaaleya ku ganacsada garoonka banaan kaaleya ku ganacsada garoonka kale banaan walaal ma dul qaadan karayo qalbigaygu ma xamili karayo intuu caawadaad soo dhaco uu dhamaantiin idin qaado hadhow ku doqmo yiraahdaan waa qadar ilaahay noqon maysa dayacaad bay noqonaysaa waana la isweydiin doonaa la tusaluna yawmaydin 'anil naciim lacagtaana 200 oo indhood maaha cashuurtii shacabka lagu ciyaariyay dad raashin haystay oo bariis haystay oo shalay hantidoodii gubatay ayaa u gaajoonaya ayaa u faramaran 200 oo indhood baan ku eegaynaa idinku inaad ka wareysaan baa dooniya dadka reer Soomaaliland ee hay'adaha caalamiga u shaqeeya ee wadamada kala duwan ee adduunyada joogan waxaan u soo jeedinayaa war nin walba intaad ka warhayso soo xisaabiyo isku geynay $1 leena dhaafin maayo halkaas ka sheegaynaa haddaan nool nabad Ibrahim Chakar CBA TV Hargeysa